السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مeel kastoo aad caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada warka Home Cable TV xilligan aan ka soo jeediyay stuudiyaha Muqdisho. Warka waxa uu diyaar anigu Cabdishakuur Xuseen Maxamed ah qodobada warkaan idin hayna waxa ugu waaweyn. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa taageertay howlgalka ciidamada wadanka Turkiga ay ka wadaan gudaha wadankaas Syria oo ay kula dagaalamayaan kooxaha Kurdiyiinta ee ka dagaalamaya waqooyiga wadankaas Syria. Erada ciyaaraha ee Somaliland ayaa sheegtay in kooxdii dhawaan la kala diray wasaaradda maaliyadda ay ku ciyaari doonaan magaca wasaaraddaasi. In ka badan 90 ruux ayaa inta la ogyahay ku dhintay, 140 ruux ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimadda wadankaasi Afghanistan. Dawladda wadanka Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xabsiga ka sii deysay amiiro iyo maalqabeeno 2 bilood ka hor la xiray kuwaasi oo la xiriiriyay musuqmaasuq waxaana kamid ah dadka la sii daayay ee maalqabeenka ka ah wadankaasi Sacuudiga Amir Walid bin Talal oo kamid ah dadka ugu caansan uguna maalqabeensa wadankaasi Sacuudiga. Daawadayaal intaas waa qaar kamid ah qodobada wararkayaga xilligan ugu waaweyn u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo goor dhow aan idin soo jeediyo.